habeen wanaagsan warkii oo dhan wafdi ka socda dawladda Soomaaliya ayaa maanta ku hungoobay inay gaaraan magaalada Garowe ee xarunta Puntland. Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa warka faafahintiisa inoo haya. sida idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ay u xaqiijiyeen ila lagu kalsoonaan karo ayaa wafdi ka socda dawladda Soomaaliya oo u diyaarsanaa inay gaaraan magaalada Garowe ee maamulka Puntland waxa ay maanta ku hungoobeen hamigoodii. wafdiga oo lagu waday in uu gaaro magaalada Garowe ayaa waxa horkacayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad. markii ay gaareen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa lagu wargeliyay in ay ka degi karin garoonka diyuuradaha ee magaalada Garowe. wafdiga uu wasiirku horkacayay ayaa isugu jiray xubno ka kala tirsan labada gole ee sharci dejinta iyo fulinta Soomaaliya. doorashada la filayo inay ka dhacdo magaalada Garowe ee maamulka Puntland ayayna u tagayeen ka oo la filayo in maalin kadib ay ka qabsoonto. maamulka Puntland ayaa toddobaad ka hor waxa ay soo saareen waxaana ay warkaasi ku sheegeen inay deegaanadooda ay ka mamnuuceen mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya balse madaxda Puntland ayaa dhankooda isku khilaafsan arrinkan mamnuucidda ah. waxa ayna madaxda dawladda qaarkood ay ku eedeeyeen inay faragelin toos ah ay ku sameynayaan doorashada la filayo inay ka qabsoonto maalinta Salaasada ah magaalada Garowe ee maamulka Puntland.